wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa galabta si hersare loogu soo dhaweeyay degmada Cadaad ee gobolka Galgaduud waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka degmada Cadaad oo ugu horeeyo gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Cadaad Cabdixakiin Calin Shilin iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada degmada Cadaad madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa safarkan uu degmada Cadaad ku yimid waxa la filayaa in maalmaha soo socda uu xariga ka jiri doono mashaariic dhowr ah oo laga hirgeliyay degmada Cadaad ee gobolka Galgaduud soo dhaweyn kadib madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa halkaasi kula hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Cadaad isagoona uga mahad celiyay soo dhaweynta ay u sameeyeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم صباحا سودوين تنقينا بدن وحين وجد إنسان نرجعين فينا ونرجعين فينا إلى الدين بالكتوين والابتحاد أساس كيد التهين آبا بكلمة عليا سودوين قيمة عداد وعممتي قلمودك تعصف هيكا أساسنتين سامين وين أيه كلها ده دولة قلبه وحنا نمت مشاريع كلا دول وتيجان كان كم شيء إن نسوق في إبنه وحي كلام دكتور عن كسر سياسي كمان إن كسر سياسي إنه مرة بعد مسألة هذا حنكون علينا إننا سيرة مجالات دو عمرتين وقول حسين أي وقت هاي عاصمة أي وقت سيرة مدا أمنيكا يحسلونيدا يهوفكا عطايستان دولة قلبه وكفر أحسن تاي وعمل إلهي دورا نقرشينينا مشاريع كالو فضانينا نكير كلنا دقوران سيد عبد الله عيسى اوغال تي في عدادو.